Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo kamid ah culumadiinka Soomaaliyeed ayaa waxa uu boqolaadada oo kula hadlay magaalada Kampala ee dalka Uganda isagoo halkaasi muxaadaro ku aadan iscafinta iyo waliba mideynta ummadda Soomaaliyeed oo halkaasi ugu jeediyay boqolaal dad ah. dadkii ka qayb galay munaasabadani ayaa sheegay inay si aad u soo dhaweynayaan muxaadarada sheekha iyagoona sheegay in loo baahan yahay culumadiinka Soomaaliyeed in kaalintii ku aadneed ay kaga qaataan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba sidii ay u midoobi lahayd. warkan waxa magaalada Kampala inooga soo dirtay wariyahana Iglan Saalax Cali. caalimka weyn Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif ayaa boqolaal Soomaaliya kula hadlay magaalada Kampala ee caasimadda dalkan Uganda. Sheekh Cariif maxaadaradiisa wuxuu ugu magac daray iscaafinta iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed wuxuuna hoosta ka xariiqay inaanu ka daali doonin isu soo celinta qulubta ummadda Soomaaliyeed. waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. marka hadda in aynu iska reebno waxa xun oo waxa wanaagsan aynu isfarno waa arin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nafaray oo nasaaran oo mar walba inaynu gudana la doonayo oo macruufka dadka faraayo murka kale ka reebaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagana liiban ayuu u sheegay. Sheekh Cariif oo si weyn looga yaqaan geyga Soomaaliyeed wuxuu tibaaxay inuu socdaal dheer ku mari doono dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, South Africa iyo wadamo kale. Sheekh Cariif oo ka soo jeeda dariiqada Ahlul Sunnah wal Jamiica wuxuu caan ku yahay tasfiirka Quraanka Kariimka iyo gargaarka danyarta Soomaaliyeed. Ku fasira fadligana waa islaamka leeyri rahmaduna waa nabiga kaleey salaatu wasalaam. maxaa yeelay waxa uu ogaanay wama arsalnaaka illaa ka rahmatan lil caalamiin u dhahay ayada saacadays marna waxa uu dhahay ana rahmad oo Ilaahay soo hadiyayana hadana Ilaahay wuxuu leeyahay asagoo nala wada hadlaaya qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi hada ku fiisha adinku kutubta fiisha nabiga lagu fasiray rahmadda waana leeysu cagsiyay xataa hada islaamki laftirkiisu nabiga ku yimiday wixii oo dhan nabiga isugu tagaya fabidalika fadligaas falyafrahu ummadda ku farxanaali. Iglan Saalax Cali, Kalsan TV, Kampala.